wanaagsan tahay wax dhiba kama jiraan waxa kaliya hadda culayska uu ka jira waa dhinacaas bariga ah xeebta dhinaceeda ah degmada Tawfiiq iyo degmada Afarwaaqo oo galmudug meelaha iska galaan baa waxa ka dhacay shalay ma aha daraad dhacdo aan si ku talagala u dhicin oo maaragtay la maleeshiya beelood oo si khaldan tilaabooyin u qaaday dadna ku laayay wax kale oo dhiba gobolka ka jiraan alxamdulillaah rabbil caalamiin bishii ramadaan مدة قبل كنا ربنا وحل رمضان مبارك إلهي أعماش الصوم كان هذه قاعد طلع لما أنت هنا قاعد طلع وأنا أقول بشهرين يا وأنا بقدر دارمي يعني كفاية يستان رمضان قبل كحال كيسوا في عين أي وما هذا قدوم إيه حاجات كسوانتها وقت يعني وحان كسب معي degmada Tawfiiq gobolka mudug wax ku sugnaay shaqada ka jirta jooga aagaas waxaan ugu maqaalaa in maleeshiyada xagga isku dagaalameen ama laba qabiil oo dhibaatooyin dhimasho iyo dhaawac wala soo gaareen bal ka war hartaas intaad ka waraysa hadar waa jirta koox dabley ah baa waxay sameeyeen waxay dab saareen niman xoolo shumaayo meel barkad ah talagal ah oo maaragtay ayagu ay ku talagaleen laakiin wax qabiilku kula socday cid la socotay midna ma jirin niman jiri oo yani waxay ahaayeen xalaawayaal ah kuwii la laayay qayb ka mid ah ayagu xalaawayaal ah baa waxay sameeyeen ayaguna dhinaca kala duulaan sameeyey oo ayaguna dad laayay marka intaasun baa dhacday hadee waa xaalad aad u foolxun xaalad maanta looga fadhiyay maahan muddo badan baan halkaan fadhinay nabadeyn baan ka sameynay godobtir baa la kala qaatay gabdhaha la kala qaatay xoolaha la kala qaatay waa la heshiiyey dhacdo danba haddana si fiican baa la isu gacan qaaday culimo iyo caamo iyo maamul iyo isimo waa la isugu yimid heshiis dhab ah baa dhacay laakiin hadee waxa weye qadarta 1000 sano ay kaa weyn tahay qadar baa dhacday marka waa waxaan maaragtay inagu filahayn oo waxaan gobolka looga baahnayn oo waxaan degmooyinkan iyo dadka walaalaha heshiiska oo inta wada deganaa oo deegaanka wada deganaa aan u cuntamin aan u qalmin weeye waa wax meel ka dhac ku ah heshiiskii ummadda ay gaartay sidaas ay adeer sax hadda ka hor waa jirtay in waxa la yiraahdo heshiis weyn la dhex dhigay oo waxa la yiraahdo xitaa qoryo lagu kala wareejiyay la kala qaatay iyo dhibaatooyin badan oo kala gaadhay la xaliyay haddana waa ay soo laabatay arrintaas inay soo laabato maxaa arrintaas sababay baad is leedahay haddii aad qiimaysay ka gudoomiye ahaan waxa weeye horta annagu dadaal intii aan bixin karayna waa bixinay alxamdulillaah rabbil caalamiin culimo iyo isimo iyo nabadoono iyo dhaqan iyo qawaayilka qaybihiisa kala duwan oo dhan iyo dowladba waa u wada jiray waana dadaalay laakiin haddii annaga heshiiskii waa dhaqan galay oo uu fulay laakiin qadartu wax 1000 sano ka weyn Soomaalidu waa dad u samaysan hadii sidaa mararka qaarkood markii 200 oo qof ay ku kala dhimato bay heshiiyaan Soomaalidu inta xaalad yar tahay in la dhameeyo oo la samro oo la kala gar qaato oo la isu samro waa wax yar oo Soomaalida in yar baa kol ama golaba marka ilaahay ku raayo waxaan wax iska qadaran weeye oo wax way qadartuna 1000 sano waa ka weyn tahay waxaan rajeynayaa inay soo noqon doonin wax aan qabaa'ilku ay ku wada socdeen ma ahayn falka dhacay labada dhinac waa aragnay odayaashoodii iyo hadii ay ku rooyaan si maaragtay kooban baan isoo aragnay weli fadhi weyn maana yeelan laakiin waxay raali ka ahaayeen labada dhinac midna ma ahan iyagiiba hadda waxa way isku haystaa oo dhibaatadii waxa loo haystaa dadkii sameeyay labada dhinacba waana dad aan arrin aad ay u qoomameynayaan labada dhinacba dadka deegaanka oo degan oo bulshada inteeda kaleeto dadka maleeshiyaadka wax falkaa sameeyay mooye gudoomiye ka maamul ahaan ka maamul gobol ahaan maxaa idinkaga qorshaysan dhibaatooyinkan dhaca oo ku salaysan qabiilka iyo reerka iyo maleeshiyaadka oo in badan laga yaabaa inay degmooyinka gobolka hoostaga ama waxa la tuulooyin ku soo laalaabtay maxaa idinkaga qorshaysan mana jiraan wax qorshe ah oo aad ka soo saarteen arrintaas waa jirta qorshe laga soo saaray waa jira hadda dhacdooyin kii hadda u dambeeyay oo tan oo kaleeto wax xalinay heshiis baana ka gaaray ciddii dambe oo wax dishay inay qisaas tahay baanu ka gaaray marka falkan hadda ciddii samaysay
annagoo qisaas baan ugu fadhinaa annagu labada dhinac wax kale aan ka doonaynaa ma jiraan iyadoo unbaa xal ah haatan wada hadal ma bilaaban si gaargaar ah waan soo aragnay oo kooban laakiin mas'uuliyadda ugu weyn hadda waxaan saaray in ciidankii meesha ku dagaalamay iyo maleeshiyada beeladkii la isu soo arooriyay aan kala fogeyno xabad joojina ay dhacdo la kala turkiyo horta bal xabad ay joogsato ciidamada la kala kaxeeyo dhinacaasna waxaa jooga gudoomiyaha gobolka Mudug iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo iyo gudoomiyaha degmada Barwaaqo dhinacayagana waxaa jooga galmudug Puntland waxaa jooga aniga iyo taliyaha qaybta iyo ciidamo aan wadanay dhinacan soke waa xakameynay waxaan ku soo celinay degmada Tawfiiq baan soo ururinay odayaashoodii iyo annagoo wada jira waana laabteen haddana waxay sheegeen wax duulaan ah inaysan oo dhan dhinacaas aysan mar raba qaadeen waana naga ballan qaadeen dhinaca kalena sidoo kale gudoomiyaha gobolka ku maqan oo dhinaca galmudug Mareexaan saaxiibkay kulley waxa weeye waa isu imaanaynaa saacadaha soo socdaan ballansanahay ayadoo Ramadaan oo dadku sooman yahay oo baahadana aanan mar raba inaan seexano aysa suuragal naga ahayn arrinka xal in laga gaaraan rabnaa dadka deegaankana waxaan ku codsanaynaa inay nala shaqeeyaan iyo odayaasha iyo culimada sida ay nala shaqeyn jireen ummadda kale oo noqon dadka muslimiinta ah waa bil Ramadaan bal dadkan Ilaahay maslaxad khayr qabtay inuu dhex dhigo in loo soo duceeyaan rabaayo bal dadkan loo soo duceeyo Faatixada loo soo maro in Ilaahay kala qaboojiyo maslaxadoodana Ilaahay tuso dhacdooyinkan in badan waxa la yiraahdo xal waa ka gaadheen waxa la yiraahdo waan soo laabtaan bal yaad isleedihiin reerii hadeer ama qabiilka hadeer la heshiisiyay ba isla hadda isku soo laabanaya yaad isleedihiin ama yaad isleedahay waa ma isdhihi kartaa gacmo shisheeye baa ku jira oo way jiraan annaga maamulka waa ka warqabnaa dhinaca hadda falkan cidii geysatay waxaanu dilay ku waran yahay tuunsanahay cadaymihiina dhinaca galmudug laga soo wadaa in ay ku lug lahaayeen kooxda khawaarijta mar laala markay soo dhawaadaan dadka inay isku diraan oo kala geeyaan si ay uga dhex faa'iideystaan ugu dhex noolaadaan qolo ugu diraan ka bacdina dadka labeenta ay walaayaan inta u soo dhex galaan oo danahoodu marka gacmahaas inay ku jiraan xaqiiq weeye waa ka digtoonahay insha Allah taala anaguna dhinacayaga dagaal baan kaga jiraa in aanu hawshaasi aysan mar raba dadka dhexdiisa aan lagu samaynin ina badan oo hadeertaan Gaalkacyo in laga sameeyo la rabay oo magaalada bartankeeda dadku uusan ka warqayn baa jira falal la isku dayay in magaalada lagu kala kaxeeyo laftigeeda Gaalkacyo baa jirtay gobolka Mudug marka meelo badan bay ka socotaa hawlahaasi insha Allah taala anaguna dadaalkayga dhinacayaga ka wadnaa hadda cidla ma fadhino inta waxbaanu wadnaa oo shaqaanu haynaa laakiin insha Allah dadku inuu ka feejignaado oo dadku il dheer u lahaado dadkan waxa isku leeyahay inay khawaarijta yihiin argagixisada yihiin in il dheer loo lahaado la qabaa waa hagaag daawadayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Mudug Faysal Sheekh Cali oo ku sugan meeshii dhawaan ay ka dhacday dhacdadu degmada Tawfiiq ee hoostagta gobolka Mudug oo naga waramayay xaaladii u dambeeyay halka ka soo cusboonaaday